السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي قال كسر ومركز العلمي تجد بشكل على تواصل السكراب هذا نشوف تنسي تشوف فيديو قال شرح كومنت واركتينا صاحب بيال isku soo noqdana saxaabada qaaliga fiidiyowga maanta waxa uu ku saabsan yahay waa iPhone-ka waxa laga yaabaa inaad gada rabtid iPhone oo qof kugu dhahay iPhone-kan waa iPhone 15 waxaan soo gatay bishii la soo dhaafay anaga ayaa bacda ka jiray haddaba sid ku ogaanaysaa iPhone-kan in la soo gaday bishii February ama bishii January ama bisha markaas lagu sheegay ama aad ku ogaan kartaa exactly maalintii macnaha bacda laga jaray oo la isticmaalay adigoo isticmaalaysid serial numberkiisa ayaad checking garay kasta iska fiiri kartaa maalintii la furay iPhone-kan ee ugu horeysay ee la isticmaalay la soco iPhone walba waxa uu leeyahay hal sano oo warranty ah oo ka bilaabanayso maalintii aad gadatay example haddii aad iPhone-kan gadatay labadii February 2024 warranty-giisu waxa uu ka dhacayaa labada February 2025 waan filayaa isla faana meeshaas waxa aad tagaysaa meesha oo Google search ee waxaad ku qoraysaa Apple coverage check qaabkaas aan qoray ayaa qoraysaa ka bacdina linkigan ugu horeeya ay hoostiisa ku qoran tahay check coverage Apple ayaad ku dhufanaysaa markii aad ku dhufatidna waxa ku soo baxayo meeshan ayaa ku soo baxayso serial number meel ay ku qoran tahay iPhone-kaaga ayaa tagaysaa oo aad rabtid inaad checking garaysid haddii aad doontid mid kale ayaa ka checking garanaysaa waxaad soo qaadanaysaa serial numberkiisa waxaad gelinaysaa meesha ayaa ku paste garanaysaa haddii aad doontid korka ayaa ka qori kartaa adiga muhiimadda waa inaad serial numberka meeshan soo gelisid markii aad gelisid numberazerka ayaa lagu tusayaa saasan inta umarayna waa ku fiirnaysaa hadduu diidana waa ku celinaysaa uu kaa bedela mid ka fudud ayaa ku tusi doonaa marka iPhone-kan waa ujeedaa waa iPhone 14 Pro Max ayaa lagu dhahay taariikhda la furay goormo waaye taariikhda la furay waa February 2023 ayaa la furay haye waxa ka bacdi marka maalintii ma uusan sii raacin sababtoo ah waa uu dhacay waxa dhacay warranty-giisa ayaa dhacay marka taariikh ma uusan sii raacin waxa ku dhahay mobilkan coverage-kiisana waa expire halkaan ku qoran coverage expire ayaa ku qoran sidaas ayaa marka la soconaysa waan ka laabanayaa marka mid kale ayaan raadinayaa marka mobile kale ayaan raadinayaa waan geliyay serial numberka waan geliyay check ayaan dhahayaa marka midkan kale waa kana waa iPhone 14 kaliya Pro xataa kan ma aha waa iPhone 14 kaliya weeyaan marka kana waxa la gatay January 2024 ayaa la gatay marka warranty-giisina waa kana waxa dhacayaa January ana 9 January ayuu dhacayaa macnaheeda January 9 ayaa la furay xarga laga jaray mobilkaas fahmaysaa mobilkaas waxa laga furay bacda ama la daaray January 9 warranty-gu maalinta u dhacay maalinteeda kala weeyaan marka kan warranty ayuu weli leeyahay taariikhda la furan waa taasa marka qof ayaa ku dhahay mobilkan darada ayaan gatay ugu dhaaranay waxba dhaarkeen si yar tartiib ah meeshan tag iska checking garay waxaaga si nadiif ah ku qaado aad iyo aad salaam ya saxaabadii qaaliga inta fiidiyowga wuxuu kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qaar saaxiibada kamid waxay ii soo qori doonaan qaybta commentiga oon ogahay football ka soo hadal saaxiibayaal waxa ii sheegtaa ana markaas waxa ii sheegtiin topic idinku adag oo markaas ku saabsan football 2024 on ka soo hadal